بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد ما أنتم حاروا إنك هذا أريرو كسابسن دلنيرتا أنت بدن دلنيرتنا وحوي برتان دين برتان كتاب ذي راعدان أحاديث تفسير القرآن كي وحنا وي برتان أدنى ماكو أركنو أو ماكو أركينو برهب بالشدة أيقو وحي برتين فافينايو way xishoonayaan inay baraha soo galaan ay wixii faafiyaan ay barteen وبالعكس taas beddelkeeda waxaan aragnaa ilmeero had soo baxay oo soo bartay labadoo hees soona xifdiyay kadib waxay la imaanayaan baraha bulshada ayagoo heesaayo ama ayagoo hees soo dul saaray taasi waa culays waaye marka waxaan u baahannahay haddaan dhalinyarta baranayso diinta intii yar aan baranay inaan la wadaagno walaalaheena maanta dhalinyarta kaliya waxaa lagu barta maanta canuga duu soo baxo kaliya waxaa lagu baranaa ama lagu ogyahay bis inuu hees iyo wix la mid ah uu soo dul saaro ama uu laayib soo galo uu ka hadlo qabiil iyo waxaan loo joogin ama uu siyaasad un ka hadlo marka mala arkaayo canug xadiiska uu soo bartay ama aayad qur-aanka uu soo bartay soo faafinaya baraha soo gelinaya marka arrintaasi dhibaato waaye marka dhalinyarta waxaan ku baraarujinaa oo aniga aan kamid ahay oo hadda wax baranayso intii yar aad baranayso intii yar aad barataba baraha soo geli walaalahaaga la wadaag ha ka xishoonin insha allah aniga idin hadlaayo haddi kadib hadduu ilaahay yidhaahdo isbuuc walba waxaan soo gelinayaa hal muuqaal oo aan kaga hadlaayo hal aayad ama xadiis hadduu ilaahay yidhaahdo qofka muhiim maaha inuu caalim yahay ama inuu culum yahay muhiim maaha إن محمد صلى الله عليه وسلم أسوق هلا أنت إن دتك واحد محوها إن لو شيء بلغوني عني ولو آية دت إيجا جارسية حتى هالآية النقطة أيوة محمد صلى الله عليه وسلم هش آية آبرت هالحديث آبرتي ولا لا يقل بدال إن فافي أكيد حشونين كان هيست جدينا ما هيست صاير وكم حشونوا إن مركب مدك البلوسلينا وحيتها هذي أركان إن ما تك هلا الدين يوحي لم يلاك هلا وحواي ما dhiirigeliyaan oo barnaamijyadiisii ma kala kiciyaan laakiin maanta aan garo hees soo dul saaray ama hees laamid hor loo qaaday hadii arkaan waxa way aad ugu falceliyaan marka taas lafteedii waa problem marka bulshada waxa loo baahan yahay hadii arkaan aan dhalinyaro ah oo ka hadlayo diinta iyo wixii la mid ah eegan waxa loo baahan yahay inay faafiyaan ay dadka kale la wadaagaan marka waxa la ogaanayaa dhalinyarta Soomaaliyeed inay yihiin kuwa baranaya diintoodii marka waa problem marlub inaan ku aragno baraha bulshada in rubtaasi joogo oo qabiil la ku qaylinayo ama nin muxuu ahaay heesaay la inaan aragno waa problem marka hadda kadib hala arko dhalinyaro faafinayso diintoodii marka insha Allah ani koow ayaan ka ahay hadda kadib waxaan barta soo gelinayaa Facebook-gayga isbuuc walba soo gelinayaa hal xadiis ama hal aayad ay wax un diinta ku saabsan saas ay tahay in caalimna mihi aan culimana ma ahi nin sheekhna ma ahi waa aan garo dhalinyar iska xaafadaan ahay laakiin maadaama intii yar aan bartay intaas yar aan bartay waxaan jeclaa marka inaan la wadaago insha Allah marka dhalinyarta kale taas ayaan ku baraarujinayaa muuqaalkan faafiya waxaan rabaa in dhalinyar badan arkaan ay ku baraarugaan ay walaalooda la qaybsadaan ayaga waxay barteen in marka halkaas aan muuqaalkaygu soo gabagabay